رئيس الوزراء dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Umar iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal ee magaalada Jigjiga رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو oo ku adkeysanaya inuu weeraro Rafah kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba kuna soo dhawaada saacada warka habeenimo ana waxaan ahay Sakariya Xuseen Cali hadii aan ku bilaabo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Umar iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garadwilwal ee magaalada Jigjiga warbixin umurtaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay Cabdiraxmaan Warmaal ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo ka kala socda xukuumadda dhexe ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale xukuumadda deegaanka Soomaalida oo iyagana horkacaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar ayaa gaadhay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle halkaas oo xariga kaga jireen mashaariic ballaaran kuwaas oo xukuumadda dhexe ee dalka Itoobiya ka hirgelisay magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle kuwaas oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Goday kaas oo lagu magac daray Garad Miraad Leyli haddaba soo dhaweynta wafdigan ayaa waxa ka qayb qaadanayay xukuumadda heerarkeeda kala duwan ee heer gobol iyo sidoo kale heer deegaan ee ku sugan magaalada Goday ee xarunta gobolka Shabeelle iyo sidoo kale shacabka qaybahooda kala duwan intaasi kadib waftigii ballaanay oo hogaaminaya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxay u soo kici timeen caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga halkaas oo ay soo dhaweyntooda garoonka Garadwilwal ee magaalada Jigjiga ay diyaar ugu ahaayeen xukuumadda heerarkeeda kala duwan bahda dhaqanka culimadiinta iyo sidoo kale aqoon-yahanka dowladda deegaanka Soomaalida soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha iyaguna waxa ka dhex muuqanayay isla markaana door muhiim ah ka qaadanayay shacabka ku nool 20 xaafadood ka kooban tahay magaalada Jigjiga ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa la filayaa inuu mashaariic waaweyn oo xukuumadda dowladda dhexe ee Itoobiya ka hirgelisay deegaanka Soomaalida uu xariga ka jari doono kuwaas oo ay ka mid yihiin aqalka cusub ee baarlamaanka dowladda deegaanka Soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda deegaanka Soomaalida waxa laga hirgelinayay mashaariic waaweyn kuwaas oo ay ka qayb qaadanayeen xukuumadda dhexe ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida kuwaas oo ay ka mid yihiin kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale bilicda guud ay yeelanayeen magaalooyinka waaweyn ee dowladda deegaanka Soomaalidu Cabdiraxmaan Axmed Warmaal Shakaal TV magaalada Jigjiga wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gaadiid caafimaad ay ku deeqday hay'adda iskaashiga caalamiga anoo ku hadlay magaca wasiirkeena arrimaha dibadda iyo howlwadeennada guud ahaan arrimaha dibadda in uu nala joogo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliya aan rabno inaan ku wareejino ambalaasyo deeq ah oo aanu ka helnay South Korea waxaan hubaa in ambalaasyadan gadaasheena taagan ay anfici doonaan dadkeena iyo dalkeena oo runtiina wasaaraddii u qalantay oo runtii badqabka ummadda Soomaaliyeed gacanta ku haysana wasiirkoodii uu nala taagan yahay maanta marka anagu sharaf bay noo tahay ka wasaarad ahaan ka wasaaradda arrimaha dibadda ahaan iyo waaxda anigu aan agaasimaha ka ahay iskaashiga caalamiga ahaan oo aanu keennay ambalaastan kuwa kalena insha Allah waa filaynaa iyo wax kale oo ka badan wada shaqayn baa naga dhaxaysa hay'adaha dalka wasaaradda caafimaadka ay ugu weyn tahay wasaaradda arrimaha dibadda oo ah albaabkii Soomaaliya laga soo galay marka mar labaad mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowladda Korea South Korea oo deeqdan iyo deeqa ka horeeyay ina siisay sharaf noo ah maanta wasaaradda caafimaad ahaan inaan 4 ambalaas aan kala wareegno wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya 4 ambalaas oo noogu timid dowladda koonfurta Korea South Korea noogu timid hoggaanka wasaaradda arrimaha dibadda kusimaha wasiirka wasiir ku-xigeenka iyo agaasimo Jibriil Afayra oo ah agaasimaha waaxda iskaashiga caalamiga ah dhammaan waa ugu mahad celinayna dadaalka ay ku bixiyeen ambalaasyadan in la helo sidoo kalena waa ugu mahad celinayna dowladda South Korea deeqdan ayna soo gaarsiiyeen oo wax badan ka tari doonto daryeelka caafimaadka iyo gurmadka xaaladaha degdega Soomaaliya wax badan ka tari doonto walow dhibaato ay ka jirto jidadkii ay la marsiin lahaa si lagu gaarsiiyo meelaha ay u baahan loogu baahi qabo deegaanada fogfog dana si kaste oo aan ku gaarsiin karna ayaan ku gaarsiinaynaa meel walba oo baahi ay ka jirto hadduu ilaahay dalkeena ka mid ah dadaal badan oo wasaaradda ay soo waday sanad iyo barkii la soo dhaafay marka qaraxii ay ka dhaceen dalka iyo codsiyo badan oo meelo badan loo dirdiray ayaa hadda qaarkood miro dhal ay noqdeen dadaalkaasna anaga kaliya ma bixinin wasaaradda arrimaha dibaddana sidoo kale ugu mahad celinaynaa dadaalka ay bixiyeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo ku adkeysanaya inuu weeraro Rafah Cabdixakiin Rijaal ayaa noo faahfaahinaya
dowladda Israa'iil ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxa ay weerar joogto ah ku qaadaysay marinka Rafah. Israa'iil ayaa wajahaysa digniino caalami ah oo uga imaanaya wadamada caalamka kuwaasi oo isa soo taraya isla markaana ka dhana duulaanka qorshaysan ee ay ku qaadayso Rafah, magaaladan ku taala koonfurta Gaza oo ay ku jiraan qaxooti badan oo Falastiiniyiin ah. Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in militariga Israa'iil ay sii wadi doonaan weerarada dhulka ah ee ay qorsheynayaan, isagoo ku adkaystay in la diyaarinayo qorshe daadgurayn ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska David Cameron ayaa sheegay in ka badan kala bar dadka reer Gaza ay gabaad ka dhigteen agaasi. Sacuudi Arabiya ayaa sidoo kale ka digay saameyn aad u daran oo ka dhalata haddii la weeraro marinka Rafah. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir lagaga hadlayay xiriirka dawladda iyo sidoo kale bulshada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Halkan maanta waxa noogu qabsoomay shir uu gudoominayay kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mudane Saalax Axmed Jaamac. Shirka ujeedadiisu wuxuu ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeya iyo sidii loo xoojin lahaa ku abaabulida bulshada Soomaaliyeed arrimaha horutabinta ula qaranka. sida aad ogtiin dalkeenu waxa uu ku jira marxalad aad iyo aad xasaasi ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed isku xirkooda loo baahan yahay in la xoojiyo. marka ra'iisul wasaaruhu wuxuu gudoomiyay shirka muxuu ahaa wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee hawsha sida gaarka u quseeya iyadoo dabcan xoog la saaraya arrimaha hortabinta leh oo ay ka mid tahay difaaca dalka oo aad ogtiin inuu ku jiro marxalad lagu soo gardarooday oo lagu soo xadgudbay muxuu ahaa xurriyadiisa dalka Itoobiya uu maaragtay tacaadi muxuu ahaa ku sameeyay madax banaanida Soomaaliya taasoo waajib ka dhigaysa in kor loo qaado isku xirka ama isku xirnaanshaha dawladda iyo shacbiga Soomaaliyeed. sidoo kale dagaalka khawaarijta oo maaragtay waqti dheer dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ay ku jireen horumar badan laga sameeyay isaguna u baahan in la xoojiyo abaabulka bulshada Soomaaliyeed. sidoo kale waxaad ogtiin maanta in muxuu ahaa dalku sidoo kale shaqo weyn oo qaran oo dadka Soomaaliyeed macna badan u leh ay doodiisu baarlamaanka ka socoto oo ku saabsan dib u eegista dastuurka oo markii ugu horeysay waqti aad iyo aad u dheer 60 sanadood ah ay u suurta gashay baarlamaanka Soomaaliyeed inuu ka doodo dastuurka muxuu ahaa Soomaaliyeed inuu si masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo maslaxadooda ku dhisan uu sameeyo sidii marka dadka Soomaaliyeed wacyigooda ku aadan wax ka ogaashaha dastuurka iyadana kor loogu qaadi lahaa. marka arrimahaas ayaa shirku muxuu ahaa ku saabsanaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in uu saacideeyo oo uu taageero dadaalka dawladda Soomaaliyeed iyo wada shaqaynta dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed iyo isku xirnaantooda iyo in iskaalmaysigu uu noqdo mid runtii heerkiisu aad iyo aad u sareeyo. Mas'uuliyiinta dawladda hoose magaalada Ceergaabo ayaa dhagax dhigay jid laga hirgelinayo gudaha magaaladaasi Ceergaabo. Saakaalka waxa laga bilaabayaa wadada jidka Sodonka. wadada tan waa wada muhiim ah oo bulshada deegaankan iyo halkan degan ay baahi badan u qabeen. baabuurta dadkuna ay dhib badan ku qabeen oo wadooyinka ugu isticmaalka badan magaalada. wadada tan waxa ka mid tahay wadooyinka dawladda hoose ay fulinayso. wadadan waa 1 kiiloomitir ballaceeduna waa 7 mitir. waxaanu halkan ka dhagax dhigaynaa wado cusub. wadadaas oo ah wadada jidka Sodonka qaybtiisa hoose taasoo dadweynaha Ceergaabo ay baahi badan u qabeen isu socodka iyo xiriirka degmada gaadiidleyda dadka shacabka ah dhammaantood codsiyadii noogu yimi aanu ka jawaabnay oo aanu halkan ka dhagax dhigayno wadada. waxaan rajaynaynaa inay ka soo bixi doonto wado wanaagsan oo aad u qiimo badan. waxaan rajaynaynaa maanta waxqabadka sida uu u soconayo cid kasta way aragtaa degmada Ceergaabo ah. dawladda hoose dadaalkeedana waa idin muuqdaa. waxa dawladda hoose Ceergaabo ka soo galay waxay ku celinaysaa wax isla maaha. waxay isu dhowna maaha. dadku waxa muuqata inaanay diyaar u ahayn ama ay ka dhaga adag yihiin inay cashuurta bixiyaan. cashuurtiina lama ogola in wax la qabtana waa la rabaa. laakiin se annagu hadda bir dhaweyd 3 milyan bay soo dilaacayso lagu leeyahay deyn baa lagu leeyahay. annaka waxna la kuma leh magaaladayadiina waa wada laami dadweynaha heer Ceergaabona waxba naguma daraan oo ma yiraahdaan war waxa qabta. wadadani waxay ka mid tahay wadooyinka halbowlaha magaalada waa dadka reer Ceergaabona waxaanu ku booreenaynaa laba shayba dadka reer Ceergaabo hadaan golaha deegaanka nahay mid waxa weeyaan inay cashuurta bixiyaan. cashuurta reer Ceergaabo ku dhagaadag yihiin
waxqabadna waa la doonaya cashuurna la bixin maayo labadaas dees qaadan maayo waqti badan ma hadhin waa aragtaan oo dee waxqabadkii dowladda hoose waa aragtaan labadii sano horena waa aragteen wuxuu yidhi geel annaga ale wax ku faanu waayey minka waxa aad iminka saxaafadaha ka arkaysaan dowladaha hoose ceergaabo iyo unbaa ugu waxqabad badan wax wadooyin sameeyey iyo hargeysa halkaa kilomitir wadooyin badanna waa ka horreeyeen waxaa looga baahan yahay bulshada ceergaabo inay cashuurta bixiso waxaan uga mahadcelinaynaa waxqabadka ballaaran oo ay ka wadaan degmada ceergaabo oo weli haddaanu reer ceergaabo nahay aananu ku baraarugsanayn oo aananu ogeyn sababtoo ah cashuurta iska daayo meel walba contribution bay maraysaa wadooyinkii wax laqabad bay marayaan shacabku way ka jiifaan wixii ay roobka ay lahaayeen kuma ay jiraan mana qabanayaan umana jeedaan soomay ee nabadgelyada iyo bashbashka inoogu soo dhammaaday ilaahayna waxaan ka baryaynaa kuwan cusub ee maanta koow ka tahay jidka 30 dhanna 1 kilomitir in ilaahay nabadgelyo inoogu dhameeyo horumar wadooyin iyo wixii kala raacaba waa waajibkii dowladda hoose saaraa ee degmada ceergaabo sanadkii hore ayaan go'aan ku gaadhnay maxaa inoo bartilmaameeda waxaa inoo bartilmaameeda horumar iyo nabadgelyo ayaanu isla qaadanay golaha deegaanka degmada ceergaabo kii unbaa socda waa ogtiin hadda wax gacanta lagu hayey masaajidada dhexdooda iyo xaraashka in laga farxashaabay ku dhowdahay waxaa keenay tan in loo soo dhaqaaqo weli wuxuu u diyaargaroobay xaggee la bilaabaya misna taa markaan ka gudbo waxaan mahadnaq ballaaran siinayaa ciidankan horumarka wadooyinka ma daalayaan waa wadaan mahadnaq ballaaran baanu siinaynaa waddadanu markayna ka dhammaatana haddii alla idmo waxaanu ballan qaadaynaa inaanu waxay mudan yihiin agaasimaha guud ee cisbitaalka weyn ee magaalada Hargeysa ayaa gawaari ambalaas kala wareegay hay'adda Boqor Salmaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta oo ay bishu tahay 12 bishii February 2024 waxaanu maanta cisbitaalka Hargeysa kula wareegaynaa 2 ambalaas oo runtii ah 2 gaari oo casriya oo hay'adda King Salman ay cisbitaalka weyn ee Hargeysa ugu deeqday iyadoo ay hawsha fududeysay ururka la yiraahdo OIC oo saldhigiisu yahay Jeddah ama Riyadh wadanka Saudi Arabia runtii cisbitaalka Hargeysa baahi weyn ayuu qabay ambalaasyo cusub inuu helo ambalaasyadaasoo adeega caafimaad ee bulshada reer Soomaaliland aanu siino wax weyn ka bedeli doona ambalaasyadaasi waxay noqon doonaan ambalaasyo loo isticmaalo in hawlihii cisbitaalku ay ku kala fududaadaan bukaanka keerkii la siinayna ama adeegii la siinayna uu kor u qaadmo wax badanna way naga caawin doonaan waa ambalaasyo runtii aanaanu hore u haysan oo casriya oo runtii qalabkooguna uu dhameystiran yahay waxaanu halkan doonaynaa inaan uga mahadnaqno hay'adda King Salman iyo ururka OIC oo runtii xil weyn iska saaray inay na garab istaagaan oo ay nagu caawiyaan 2 ambalaas runtii baahida cisbitaalku uu leeyahay intaa way ka badan tahay waa barbilo wanaagsan waxaan rajaynaynaa insha Allah mustaqbalka inay sii kordhiyaan baahi fara badan oo cisbitaalku uu leeyahay baa jira waana meelaha ugu badan ee haddii qof uu bixinayo maalkiisa uu bixinayo meelaha ay aad ku anfacdo ayay ka mid tahay annagana waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ambalaasta la keenay 2 ambalaas ee la keenay aanu daryeelno adeegii loogu talagalayna lagu qabto caafimaadkii bulshada reer Soomaaliland wax badan aanu kaga bedelno runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay'adda King Salman iyo OIC labadaba maanta ujeedadu waxay ahayd inaan la wareegno 2 ambalaas iyo inaan ugu mahadnaqno aad iyo aad baad u mahadsantiin baan leenahay meeshii aad ka soo saarteen caawil khayr qaba ilaahay ha idinku bedelaan leenahay daawadayaal wali waxaad naga daawanaysaan muuqbaahiye caalamiga Shakaal TV markana haddii aan eegno warbixin
maxaad kala socotaa ama saad ka taqaanaa gabadha ugu gaaban adduunka warbixin umuurtaasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Fiime Ibrahim kulanti wacan daawade maxaad ka taqaanaa haweeneyda ugu gaaban adduunka waxa lagu magacaabaa Jyoti oo ah haweeney u dhalatay dalka Hindiya waxayna ku jirtaa buugga dhacdooyinka ee adduunka maadaama ay tahay haweeneyda ugu gaaban Jyoti waxay dhalatay taariikhda 16 December 1993 waxayna ku dhalatay Nagpur oo ka tirsan dalka Hindiya dhererka Jyoti waa 0.6 inches marka loo eego cabirka rasmiga ah ee buugga dhacdooyinka tani waxay ka dhigaysaa haweeneyda ugu gaaban adduunka Jyoti waxay leedahay xaalad caafimaad oo loo yaqaano Chondrodrovalia oo ah nooc ka mid ah dwarfism xaaladani waxay saameysaa koritaanka lafaha waxayna keentaa dharar gaaban si kastaba ha ahaatee Jyoti ayaa ah mid aanan ogolayn dhererkeeda in ay qeexdo waxayna qabataa go'doomin waxayna u noqotaa dhiirigelin kuwa badan inkastoo ay Jyoti da'deedu ku dhowdahay 30 sano waxa ay gaadhay guulo badan oo nolosheeda ah waxayna ka soo muuqatay filimaan bandhigyada telefishinka waxayna ka soo muuqatay oo kale bandhigyada dhabta ah Jyoti ayaa u isticmaashay gaabnida dhererkeeda inay kor ugu qaado wacyiga ku saabsan caqabadaha ay la kulmaan dadka u nugul iyo doodista xuquuqahooda haddaba go'aanka Jyoti iyo habdhaqanka togan ayaa ka dhigay mid ay ku daydaan dadka adduunka oo dhan waxayna muujisay in muuqaalka jirku aanu xadidaynin hamiga iyo guulaha qofka sheekada Jyoti waxay cadeyn u tahay awoodda is-aqbalitaanka iyo adkeysiga qofka bilaadanka ah watay daawadin intaas waxaan ku soo gabagabeynayaa saacadda warka habeenimo warkan dhigiisa inta naawada dib u kulmi doono amaana Allah